wasiirka wasaaradda umuuraha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo waraysi dhinacyo badan taabanaya telefishinka Ariel ku siiyay xafiiskiisa ayaa ugu horeyn ka hadlay hadalla ay dhawaan isdhaafsadeen musharaxiinta jagada madaxweyne ee xisbiyada kulmiye iyo wadani. waxa uu wasiirku sheegay in hadalladaasi ay daawac weyn ku yihiin Somaliland isagoo labadaasi musharax ee xisbiyada kulmiye iyo wadani ugu baaqay inay hadallada qalafsan iska ilaaliyaan. wasiir Sacad Cali Shire oo si qoto dheer ula hadlaya labadaasi musharax waxa uu yiri soo dhaweynaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka waa runtii si wanaagsan bay doorashadu inoogu socotay sidii aynu galay shantii ka sii horeeyay marka laga reebo dhawaan hadalla xanaf leh oo la isku tuurtuurayo oo ka soo baxay fagaarayaasha laga hadlo arrinkaas runtii wax laga yaabaa inay dareensaneen siyaasiyiintu laakiin dhaawac weyn buu inoo geysanayaa runtii doorashadeena si fiican baa loo danaynayaa loola socdaa waxaynu nahaniyo waxaynu qabanaba waa la duubayaa waa la arkayaa waa la maqlayaa marka waxa wanaagsan inaynu ka fogaano wax halaaliyo wixii sumcad xumo inoo keenaya tiirarkan ku taaganahay laynagu qadariyaa waxa weeye waa nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo hanaanka dowladnimo haddii aynu la nimaadno wax runtii burinaya intaas marka dee sumcaddeena hoos bay u dhacaysaa halkii aynu taagna hoos baynu uga dhacaynaa taasuna maaha himiladeen haddii wax waliba ay noo hagaagaan doorashada maanta hadday noogu dhacdo si nabada oo xor oo xalaala sidii berigi hore aynu u baranay wax weyn bay ka bedelaysaa way ka taraysaa maxaan idhahdaa geedi socodka ictiraafkeena marka muwaadiniinta siyaasiyiinta saxafiyiinta cid walba waxaan ka codsanayaa in nidaamka iyo anshaxa la ilaaliyo iyo nabadda laga fogaado wax halaaliyo wixii cilada xanafa ee xajiimeyn keenaya in laga fogaado runtii oo dib loogu soo noqdo in lagu kaambeyn gareeyo wax dadku ay danaynayaan waxay danaynayaan nabad iyo nolol way nabad iyo nolol laga hadlo dadku shaqay doonayaan waxay doonayaan maxaan idhahdaa waxbarashay doonayaan dadkeena boqolkiiba 50 waxna ma akhriyaan waxna ma qoraan maxaan idhahdaa dhibaatooyin fara badan baa ina haysta maxaan idhahdaa shaqo la'aan wax soo saarkeenu aad iyo aad buu u yaryahay marka waxaan u baahanay waxyaabaha dadka taabanaya noloshooda maalmeedka ay doonayaan ka maqlaan siyaasiyiintu si ay u xalilayaan in lagala hadlo oo laga dhaafo runtii wax nafta iyo hadalka xun goobjoogayaasha caalamiga ilaa hadda Somaliland maxaa soo gaaray waxay imika noo yimi hordhacoodii inta badan waxay yimaadaan 5 casho u dambeeya ayay yimaadaan insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaa 100 inaan ka yar inay noo timaado inooguma horeyso doorashooyinkii hore dhan galay oo dhan waxay nooga yimi caalamka goobjoogayaal iyagoo markii dambe xaqiijiyay sidii aynu u galay doorashooyinka xor iyo xalaal ahaayeen waynu u baahanahay in intaas soo goobjoogay noo yimaado waliba qaar habaysan runtii waxay ka turjumaysaa maxaan idhahdaa halkaynu ka joogno caalamka inkastoo ictiraafka buuxay aynaan haysan haddana waxay muujinaysaa sida maaragtay loo danaynayo siyaasadda Somaliland haddii aan layna ictiraafsanin dalaynama danayno laynooma yimaadeen waxa marka dadka shacabka looga baahan yahay reer Somaliland iyo siyaasiyiintaba inay runtii nidaamka ay dhowraan si goobjoogayaasha ay nala jooga goobjoogayaashu markhaatina ka noqon maayaan kaliya maanta doorashada dhacayso waxa laali wixii maanta dhacaya laftigeeda waa ka markhaati way la socdaan waxa laali wixii ay naga arkaan warbixin bay ka bixinayaan marka waxaan u baahan inuu had iyo jeer dareensanaano in diirad laynagu hayo oo mataqaana wax walba kan ka dhacaan baa inaba la qoraayo oo inagoo taa dareensan aynu mataqaana ilaalino nidaamka iyaga laftigooda aynu soo dhaweyno ayaa runtii loo baahan yahay wasiir waad ogtahay hadda Kenya waxa ka socda doorashadeedii Somaliland maxay ka baran kartaa runtii waxaanu ka baran karaa oo dhibaatada Kenya ay ka dhacday habkii loo maamulay doorashada iyo dhaliilo mucaarid ku soo jeediyay gudida doorashooyinka inaka alxamdulillah ilaa hadda gudida doorashooyinka shaqadeed aad u wanaagsan way ku mahadsan yihiin ku amaanan yihiin ay runtii noo hayaan marka waxaanu u baahan in la shaqeeyno gudida doorashooyinka dabcan haddii wax dhibaato iyo cabasho ay jirto waxa loo baahan nidaam baynu leenahay nidaamka in lagu dhameeyo kolka haddii ay noo adkaato runtii nidaamkaas imikana nasiib wanaag sanadkan habka wax loo dooranayo uu ka duwan yahay hababkii hore oo hababkii hore marar fara badan waa lagu noqon jiray doorashooyinka cod bixinta waa lagu noqon jiray laakiin hadda suurtagal maaha hadda waxaynu qaadanay nidaam aad iyo aad u wanaagsan baynu qaadanay oo dadkoo dhan ay ku wada kalsoon yihiin gudida doorashooyinkuna shaqo wanaagsan ilaa hadda qabatay waxaan ku kalsoonahay wixii ka soo baxay natiijadeeda in lagu wada qanci doono insha Allah ugu dambeyntii wasiir Sacad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland fulaxantii ma moogana baa la yiraahdaa in
wasiirro badan xisbigii kulmiye ay hadda u ololeynayaan adiga goobaha laguguma arko haye halkay wax ka sii yihiin horta anigu dee waxaan ka mid ahay dowladda kulmiye baan ahay wasiir dowladda kulmiye waxaan ku jiraa golaha dhexe ee maxaa la yidhahdaa kulmiye nagu kulmiyaanu nahay waa musharax baanu leenahay waan soo dhaweynaynaa runtii tartanka maxaa la yidhahdaa lagu jiro xisbiga kulmiye yacni dee doorashada amba ololuhu maaha un meelaleysa soo taagoon maxaa uu fara badan yahay wajiyada faraha badan ee loo taageeraa maxaa yidhahdaa loo taageeraa doorashada aanu qayb baan ka ahay maxaa yidhahdaa inta u ololeynaysa xisbiga dee kulmiye waxaan aad iyo aad ugu kalsoonay wixii uu soo qabtay xisbiga kulmiye inay ahayn wax ku oola oo dadku ay ku qanacsan yihiin waxaan ku qanacsanahay barnaamijka xisbiga kulmiye uu keenay waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay maxaa yidhahdaa musharaxa xisbiga kulmiye musabixi inuu noqon doono hoggaan mataqaanaa wanaagsan oo runtii wax ka tari doona dhibaatooyinka dalkeena haysta Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.